imtixaankan ay maanta hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya ka qaadaysay 3 tartame oo u tartamay 7 boos oo ka banaanaaday hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ayaa waxa ka soo qaybgalay goobtii lagu qaaday imtixaanka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya mudane Farxaan Hadan Haybe gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland iyo waliba agaasime ku-xigeenka macadka shaqaalaha dawladda Soomaaliland ugu horeyn waxa daafuray hadalka oo ku dheeraaday ahmiyadda imtixaanka uu leeyahay tartamayaasha agaasime ku-xigeenka macadka shaqaalaha dawladda Soomaaliland Mustafa Axmed Maxamuud waana kan maanta waxaynu u fadhiisanaynaa oo ay bishu tahay 18 bishii 9aad 2019 boosaskii aad u soo xiraysateen hay'adda Quality Control Commission ama hay'adda tayada dhowrista tayada jamhuuriyadda Soomaaliland waatay boosas soo xayeysiisay hay'addu waxay u baahatay 7 qof oo ay u qaadanayaan dad shaybaarka oo ka shaqeynaya berbera sidii procedure-ka iyo nidaamku dhigayeen waxay soo mariyeen hay'adda shaqaalaha oo waajibaadkeedu yahay soo xulista shaqaalaha cusub ee loo qaadanayo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya mudane Farxaan Hadan Haybe ayaa isna waxa uu ka hadlay imtixaankan maanta ay qaadayaan iyo sida cadaaladda ugu fadhiyo mahadsantihiin waana idin hambalyeynaya waa isreebreebo hadda 400 ka soo dhex baxdeen annana waxa waajibkay yahay inaan hab cadaalad oo alla ka cabsi leh oo turaale leh inaanu marino shaqaalaha dhalinyarada daayirta aqoon-yahanka ee u soo hiloowayna shaqo qarankooda u qabtaan inaanu xaq soor wanaagsan u sameynaa waajibkana saaran weey idinkana waxaan idinka mahad celinayaa inaad guusha inteedii hore 400 ka soo dhex baxdeen idinku dhowr iyo 30 ilaahay mahadi weeye waxaan rajaynayaa insha Allah taala in ay idinkuna si hufnaan loo wanaagsan aqoontiin iyo burhaantiin u soo bandhigtaan nidaam kasto hay'adda shaqo kasto dawladda ka banaanada qaranka ka banaanaata waxaanu ku talagalnay inay noqoto habkaas la idin soo mariyay ee inta dambana ku dhamaysanaysan cadaaladda inay u socoto hadii jeer hay'adda ama institution-ka loo qaadayo imtixaanku qayb ka noqda waa sababta Muuse gudoomiyuhu noo joogo maanta xubin baan halkan u joogaysa sida observe garanayso la soconayso kormeeraysa shaqadu socoto waxaan u amaanayaa macallimiinta imtixaanka diyaariyay waxaan amaanayaa xubnaha hay'adda gudoomiye ku-xigeenka guddida madaxda ka ah panelka ahaa waxaan amaanayaa mahad ballaaran u celinayaa macallimiintii soo diyaarisay imtixaanka oo halkan joogan dhamaantiina waxaan leeyahay intiina hesheena Allah idin barakeeyo shaqada intiina kalena waa wada joognaa wixii kale soo baxay ee ka banaanaan laba wiil kadib shaqo badan baan soo xayeysiinayna insha Allah waa nasiibeydu ka qaadi ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo gudoomiyaha hay'adda tayada Soomaaliland isla markaana sheegay ujeedada ay ka imtixaankan waxaana uu bogaadiyay dhammaan tartamayaashii u fadhiistay imtixaankaasi sida shaqaalaha hay'adda shaqaaluhu iyo gudoomiyuhuba sheegay marka ugu horeysa waxaan idinku hambalyeeynaa inaad isreebkii muxuu ahaa labaad aad joogtaan imtixaankuna uu noqon doono sida la sharaxayba mid cadaalada oo qof waliba qalinkiisa iyo aqoontiisa lagu qiimeynayo sharaf bay qaranka u tahay annagay noo tahay ka hay'ad ahaan dadka noo shaqeynaya ee hadhow go'aanka qaadanaya marka laabka shaybaarku soo baxo alaabta la hubinayo tayadooda la hubinayo inay yihiin marka horeba dad ku yimid si cadaalada shaqadooduna ay noqonayso mid cadaalada oo aan cidna aqoonin waan idinku hambalyeeynaa waxaan idin rajaynayaa muxuu ahaa in ilaahay cidii uu calfo ee dadaashay ee qalinkoodu iyo cilmigoodu keeno annagana cidaas uma naanfacays inta ku guuleysatana waxaan ugu ballan qaadaynaa in tababar dheeraada iyo aqoon kororsi dalka dibadiisa ah aan u sameynayno bil shuruud laakiin waa inay qaranka u adeegayaan muddo waana laga saxiixayaa muddada u adeegayaan qaranka oo shaqo kale aanay qabanayn